السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال برنامج كيني ويارك اس ان تي في لندن قيبتن وهذا جعلان دوتان وحا يعني أنكو سقاطن دونا عنوانك أما موضوع يعني ليه يراهدو وقتي كان ملوبة هاي معارض نمو حتى صوماليا حالة اي كوسوغان تاهي وقت كان صوماليا موبة هاي معارض نمو وعنوانك يعني قطبك أنا هل كان عاوة كوف بندق دونه أن كوف فلان قين دونه وحب برنامج كمرتي وهل كان فرديو أقوياهن وعيقلية نقدية قراء بولشوينتا يعني ويبسايت يدا يو ميلها وحلقو قرون لغا يقانو أفكارتي سكو صوبان ديغا إلا وقتيدي ودنبي سندهان با سوماليدا حوق الساري أمدا معنية يعني وحيابا فربنا توسيو كيسا بدن كتوسيو و إسلاو ظاهر سعدال كسو دواو برنامجك ويارك اس ان تي في لندن بسم الله marka ugu horeysa waxaan ku bilaabay Ilaahay magaciisa يوم هذا علنتي سن الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله magaciisa بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan aad u salaamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ka daawanayso iyo meel kasta ay joogto waxaan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan adigu casuumtay iyo waliba waqtiga aad gelisay intaad baadi goobaysay iyo saad iskugu howshay iyo inta howl ka gashay anigu waan ogahay aad baan kaaga mahad celinayaa abaal loo inuu kaaga haynaa laba waxa kale oo adigu mahad celinayaa wax qabadka muuqda ee aad u istaagtay oo aan isleeyahay waa yarayahay maanta intaan waqtiga qof galiya danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed waa sugow iyo sidaas kugu taxallujiso xaqiiqda dhabta ah iyo higsiga nabadda iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed sida loo baadi goobi lahaa maadaama aynu ku jirno xilli kala guur ah aad baan wax kaaga ogahay barnaamijyadan aad baan u daawadaa midna ima dhaafo oo ay ugu dambeysay sida aan filayo tii adiga iyo boolaay ee aad soo bandhigtay oo aad lahayd war ummadda tusi xaqiiqda waxa ay tahay iyo huhaada beentahay gaabka ay isu jiraan aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan ku leeyahay jazakallahu khair واتهاي عاوة إيو صوماليا ما وباهنتهاي معارض نمو إرق معارض أنا رادين إيو في صومالي كل رادين أين دويت أيام واحد حالي سلاو ظاهرو لكت ورهاده ورنكا واني لكت لكت كوا استعمالي جرني واقع يريرين ما حسوستا ولا يردين وري هذيك لكت بات وصوت أنت هواي إرق لكت ومعارض صح أوي يعني ورباهنتو إرق لكت هاي استعماش لكت نمدا نجده لكن نيم الله ما بحنو معارض أف عربي والله كوال صومالي ما دام عرب أف عربي دو كبوح واتها قضب كاين أوصل نقول مركب وحيسة لما أنت أتكفى دي سندون تارونتي رونتي إسلام دار وما حي مركب إيش معارض يعني رونتي وحن معارض وما حي معارض هذا نصتها واسوي أنا سلايا يورتا ومد الصوماليات يورتا واحد كلمة ده هذه سيء أدبن كذا ما هي معناها دي هاي إن حل الله يهرب بالورتا كلمة المعارض كان الشيء مرتي إيش ضد بدون شيء تاني هذا حنا معارض ورتا مركب ور رئيس مركب علميا وفر عنهم معارض ورتا وكورجيد هذا كورجيد علميا يسوي لكن كلمة ده اللي هذا وحنا سلايا هاي ما ورتا وكوت عقلنا لكن حنا سلايا لكن سيدا هدو هي وهي لكن لكن ما أنا معارض وقف أما ضد أرتوى علمي ديمقراطية ده كمذا وحنا كرر شاء من الديمقراطية ده كجرتو أنت هسرفه مركا أنا أقول ملهين معارض أنا أعرف كذا عن قباء ما بهلهين أنت الصوماليين هاي معارض ملهين لكن واحد لنا واحد ردن لي لكن يو دن لي بقى واحد قبته لكن معارض بس إسكابية دن لي لكت وهو ضغف عن جاري مرين عقل كوشغين فكرين مال كدقة كر يقر درنا عن كلا أقون عند عديس القبابع لا أو لمد هذا مثال سوقته صح أو من أبيه أوتشله أبيه يا لكن معارض كصوصاكم مسيفو بن قديس
maya mucaarad wuxuu ku imanaya waasgu mucaarad waxa fooyinkaas buu mucaarad ku dhisan leeyahay meelaha qaarkood marka ka eegto Way, soo waxaan taagan adag dagaalamaya wax jiiraya wax boobaya wax dhacaya maya anigu waxaan qabaa aragtidayda wey horta waa ku qaldanayn karaa laakiin absolutely mucaarad horta waa wax sharciya صح waa wax cilmi ku salaysan صح mucaaradku ma aha wax dumiya ee waa inuu ahaadaa wax dhise wuxuuna ku yimaadaa laba meedo firi adduunyada wax walba waxay leeyihiin laba iska soo horjeeda sida cadceeda iyo dayaxa sida mugdiga iyo iftiinka sida nin iyo naag sida lab iyo dhedeg yani wax walba sida shar iyo khayr wax walba waxay leeyihiin wax ka soo horjeeda muxaafid baa marka dhinaca kala ah markuu kan mucaarad yahay mucaarad wuxuu imaan karaa marka ay jiraan xisbiya dimuqraadiya oo la sharciyeeyay oo mid uu ku guuleysto taladii dalka midna uu ku guuldaraystay markaasay timaadaa laakiin inagu markaan nahay Soomaali su'aasha waxay tahay ma leenahay xisbiya sharci ah oo midna uu yahay muxaafid midna uu yahay mucaarad oo dadku ay one person one vote ama waxa la qof iyo codkii ay ku yimaadaan oo looga xisbi ku guuleystay oo muxaafid ku yahay ma lihin laakiin qola adeegsata mucaarad waxay waana sifo khalad ah oo been ah oo aan waxba ka jirin maba lihinba xisbiyo muxaafida iyo midan kuwa mucaarad ma lihinba marka waynu ku soconnaa waynu gaari doonaa laakiin maanta waxaan leenahay dad la danley iyo dawlad lagu soo yabyabay sidii lagu gaari lahaa mucaarad iyo muxaafid laakiin ma lihin maanta waxa la yiraahdaa halka waxaad u hadashay heerkii yani qaamuuska qeexitaankiisii adduunka cilmiyan yani siyaasadda cilmiga siyaasadeed marka la qeexayo qodobka yani opposition ama mucaarad waa runtaa weeyaan laakiin waxaa ajaab leh hadday waxbaa tiri mucaaradka wax ma dumiyo waxba u dhisaa baa tiri ereygaasaan kusoo noqday mucaaradka marka waa marka wax dhisay wax duminaya waa inta kale ka soo qaad dalkan ingiriiska mucaaradkiisu waa hadda Labour Party xisbiga Labourka waa mucaarad hadda Conservative Party-gana waa ninka muxaafidka oo haysta dalka haysta Labour Party-ga mucaaradnimadiisu wuxuu ku aadantaa xisbigaas inuu dumiyo ma ugu raacsantaa taas in uu cod ahaan dadka ku wacyi geliyo in ay qaldanta waxa ay sameeyaan qalad yihiin waxaasna ay ka tagaan waasigu waxay sheegaan waxa ay wax ka qabteen bay ku amaanaan oo ilaa xisbigani waxaas uu wax ka qabtay waa ku amaanan yahay laakiin arrinkan waa qalday yiraahdeen waliga iyo allaha hawadeena oo gumaysi ku jirta hawadeena dalkeena Soomaaliya aniga horta taasaan wajahaya ilaan ka oo hadlimayno dalal kale dalkeena maruu Soomaaliya mucaaradka wax iska weydiina waa keena waxa ugu tilmaamay dalay of course laakiin waxa la rabaa dadka in tortu u ifiso ereyga mucaarad Soomaaliya title-ka cinwaanka barnaamijkeena waxa waaye Soomaaliya mucaarad ma u baahan tahay ad ma adsantay marka waa adiga waxaad u maraysaa hadda wadadii aad ugu ifin lahayd dadka horta inaad fasirtaa waa maxay mucaarad halkeebu mucaarad ka jira sidee u shaqeeyaa yaa noqon karo wixii baad taabanaysaa adaa iskale waa taa ka soco jazakallah aad ugu mahadsantahay inaad igu toosiso wala oo dhagan aad leedahay kugu aqaano jidka fiican oo macallin aad ahayd shaqooyinka waan ku ogahay macallin baad ahayd maadaama macallin ahayna waxa weeye waa maada adigu waa wax aad ugu baratay wey waa ku mahadsantahay ana ardaygaageen marka ani adiga political science ma baran anigu horta waxa xoogaa iga bilaabay adiga ma ogi laakiin aniga ma baran macallin aad tahay macallin aad qodob aniga waxaan soo qoray aad baa u jeclaystay heerka yani qaabka aad u jeclaystay title-ka waxaan soo qoray kaliya title-kan soo qoray laakiin waxa kan aqoon dheeraada uma lihi runtii barkay waa la iga bajaa la ma Soomaaliga gooni way dhigitaankiisa laakiin aqoonta magaca waxa siyaasadda iyo bulshada iyo waxyaalaha waa cilmi kale oo la barto oo daraasad laakiin annaga maanta Soomaaliya hadaan nahay aynu isku dayno mar walba inaan wixii raadino u ifino shakhsiyaadkan isleenahay way fasiri karaan oo waxbay sameey karaan marka adiga waxaad aad u dhaxgashay bulshadii baad dhaxgashay waa tahay markii ka dhaxgalin waa maxay mucaaradan nari mucaarad marka waxaad ku qaadaa ay taabto waxay tir dadka inaad u safaysaa loo baahan yahay waasigu dadka marka u safayno mucaarad oo wax jira علمنا كل سنة معنيه سنة وحدسه صح معنيه سنة وحدمية صح وحو كابا أو تلماما وحا محافظ كمغان دالك هراء أمرا ويان قاحدة exactly رير يوروب exactly ما exactly ما هنن اسبارات دغنا يا اما بالغيسان ما دد اسكو ديريا ان هذا معارض صح ما اصلا الى معارض وات marka maxaad ku tilmaamaysaa marka mucaarad Soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay Soomaaliya horta mucaarad waa maxay waad qeexday
معارك مركو ku kala xiran yahay aad baan jeclay isqiidaada yani labada bulshooyinka uu kala nool yahay ma ogoshaasa horta marka ugu horeysa anigu maba qabo waa baahi iyo baahi aan horta ma leeyihiinba totally ma leeyihiin horta mucaarad laakiin dan leeybayno leenahay waxaan dhihi lahaa in war Soomaaliya maanta dan leey ma u baahan tahay laakiin aan ku soo qaato sanadka u tiri erayga Soomaaliya dan leey wixii hadda ka dambeeyo أنا كوكو راح Soomaaliya ما ولا بالمعارض قاعدة تاعت شكتي Soomaaliya معارض ملأ ودلي دلي بانو لا جو سلي وي والله هاي إن بدن مقعد بدن بحيي أنتوا على يقوم مقعابي على سواسي على يقوم مقعد نينكي يقوم مقعد بحنت بدنا 2017 وامقل والله صعدة دلي مرك معارك Soomaaliya si noo fahmaan daawadayaasheena markay doodan maanta waa very interesting si noo fahmaan daawadayaasheena yani mucaaradku waxaad ku qeexday dalay maanta Soomaaliya ka soo horjeedka iyo diidmada iyo guryanka iyo guuxa socdo dadka sameeynayo ma ahan dad ku sifoobay mucaarad ku sifoobay ee waa dad ku sifoobay dalay gooskooda dhuuntooda u dareynay marka qolada dagaalamaysa maxaa ku tilmaami lahayd حبضها طوري حبضها طوري يا كوس أنا ولا يا كوس معارض ما ده كرنا واسكو مدورته واحد ما اسمه دوريان واحد ما اسمه دوريان وايا قول أنا قبل بيك أنا سا قول أنا دينتي إسلام كي وعي كدجين سياسة أنا سياسة ما واحد وعي جرينتا يورقها إنه ديبان وعي هذا حدا دون يسأل أنا تكتو حدا doonayso in dadka islaamka ay awood yeeshaan in caalamka ay xukumaan waa in aad dishaa qofka shahaadanaya kaliya beegsataa dadka Soomaaliyeed oo wada islaamka waa in aad ilaahay ka barida in ay soo dhawaadaan si aad qarax dhex dhigto oo u dhamaadaan si dadka si ay aan u noqono oo islaamku wax u noqdo waa in dadka islaamka baabi'isa u fiirsaya si islaamku wax u noqdo وإسلام كبابس. أود وياش وأنا إسلام كبابس. بل إلهي من كل شيء لبض قبل سوق بتسين. وأذكر أرنتا محل. مرخاتبة. أرنتا الروبي كرمها عارين كرمها. تا وعاد مرخاتبة أنا إيجا تاي إني سنة إد كلام بيكسن أي هكبر لو تاني سجاني إكتان. مساجد دخل مساجد دخل. جبر هدي يكون ريا مرعرضة. مد هدي يكون عنق يرو جامعة وصعدة. عنق يرو حتى لما يقول يرو عساية. شيخ. iyo masaajidada iyo muslimku ma isku yimaadaan ayuu bay bam dhexda iyaga oo ku sifeeya waa horumarka islaamka marka kanina wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaarshay waswo iyo ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysay waxay tahay waxa aan maanta isweydiinayno isu sheegaynaa waxta horta waxa la soo qariyay ma fiicna qofna ma ataagayno qofna taaban mayno sax meeshan waa TV-ga Somali National TV marka waxaan doonaynaa inaan xuquuqdiisa sharaftiisa dhowrno si walba ma hadli karo أنت أقعد كم وضع لك لكن واحد أقنع ضد ما واحد اللي قلت تهمي صح دليل بدن أو إني بدني يمسدي صح ضد كاس واحد سوسة تاجين مدحوين النمو صح بس سوسة تاجين نو واحد جرا ويل يرى أو ماد سوى ويل يرى ماد فلادقن لأنه أدب جعله يوه ساعة وهي ساعة marka waa heesiya waliba hadda hees wuxuu keenay leeyahay iska soo istaaga maciisi sumiya asagoo ka raba inuu Soomaalida isku yeero oo ay colaada iska daahiyaan isagoo ugu baaqayaan ninkaas firiya laakiin waxay ka gashay wuxuu sir aqoon habka heesaha loo alifay wax badan laakiin damiirkii Soomaalida ku jira mucaaradnimadii qodobkii aan ka bixin kama baxayo waa mucaarad qofkan ku sheegay aan ku jirnaa wali danleydi baan ku jirnaa mucaarad danleydi Soomaaliyeed Soomaaliyeed baan ku jirnaa Soomaali waa danley waa dadka aan rajo ka leenahay qofkaasi dadkaasi waxay sameeyeen dimuqraadiyad bay soo galeen madaxweyne soo sharaxeen saddex codow nin helay ninna abuba yaa cadeynaya dadka inay iibsadeen badda maxaa lagu cadeynaya waxay ku cadahay afkooda iyaga ka markhaati kacay iyagoo oo runa ayada oo la jooga barnaamij sidan oo kaleeta ah oo TV oo daaran yahay oo ninka la yiraahdo dilay ku raacawil daahir soomaaliya iyagoo la hortaagan yahay buu yiri haddaad aniga badda inaan gatay aad aniga igu tuhmayseen ninkii ra'iisul wasaaraha kale waa kana asaga u qabsaday ninkaasi halka ninka saas dhaha badda inuu ma gadan wuxuu leeyahay haddaad igu tuhmayseen badda inaan gatay ra'iisul wasaaraha waa kana hal qabsado leeyahay macaash waxa ku jira wali lama hubo wax yaani
cad oo waraaqada cad oo qoraal oo badda in iibsaday oo qof lagu cadeeyay lagu helo maxkamad la soo saaro Soomaaliya wali ma jirtaa su'aasha tagu weydiinaya aad baad u mahadsantahay runta oo sheekaysano aad SN TV waa fadhinaa ma jira hal qof oo lagu caday karo Soomaaliya inuu wax iibsaday aad baad u mahadsantahay waasfi waxaan aad kaaga mahad celinayaa wali mucaaradkii ku jirnaa gooya dalleyd waad waasfi horta aad baan kugu celinayaa kaaga mahad celinayaa su'aasha aad igu adkaysay waana waxyaabaha aan jeclahay in la soo sidaydaba anigu waxaan necbay waxa ma aragtay la isu nacamleeyo ba ayaan necbay thank you waxa waliba waxaan markhaati horta waxaan dhigaa Soomaalidu mid bay tiraahdaa waasfi waxaa la yiraahdaa kaaga marag hadaan lagu lahayn kuma meel qabato qofna afkiisa kaga beeshay maayo badeena in ay khalkhil gashay oo maanta ay maxkamad taalo cidna cid isweydiinaysa ma jirto kayska Kenya waa gooni maxkamadaas waa inuu lahayn wasiir qaabishan iyo ra'iisul wasaar iyo madaxweynaha lahayn ikada tan ka dhacay taariikhda waxaan u socdaa marka waxay yiraahdeen wada hadal baynu gelinay maxaa waxeen shaatiga aniga aan sito wada hadal waxa geliyaa maxay ma badana bad Soomaaliyeed ahayn waa tahay mawduucina u soo noqono marka xilin dad baan daawanay malaayiin baan daawanayso SN TV ma fadhinaa yani ka wuxuu leeyahay barnaamij kale oo nooc uga socda laakiin dhamaystiro waxaan uga socdaa halkee baad uga socotaa meel baan uga socdaa thank you very much waxay kaasa anaga wuxuu isku keenay sheegayaa dadka noocaasa markaynu ku niraano mucaarad markaynu ku tilmaano waa meel ka dhac weey mucaaradnimadana meel uga dhacayna mucaaradna la yiraahdo waxaan markaan hal maalin waxaan yiri fala dadka soo bixiyay firi nin ra'iisul wasaare Soomaaliyeed Soomaaliya maanta wuxuu yahay advisor dawlad Soomaaliya cadow oo wada naqaana aborigine oo New Guinea Babua kama inaan imaan aniga adigu Soomaaliyan kan meel ka soo joogna aad buu ognay advisor ayaa maanta nin ra'iisul wasaare Soomaaliyeed soo noqday baa wuxuu uga yahay dalkan cadow marka waa mucaarad sheeganaya waa ka hadda ku soo noqoto leenkii mucaaradnimadii dalleeyda iyo dalleeyda ka bixin sababtan oo eegde shakhsiyaadna inaan magacaawno waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed shakhsiyaad la meel ka dhac lama ogolo intaana xanuun ugu waxaan sheegayna constructive inay noqdaan wax dhismaha ummadda u faa'iideynaya laakiin wax u nuurinaya maanta waxaan rabnaa ummadda inaan barno waa maxay mucaarad yaa mucaarad noqon karo waa maxay ujeedooyinka mucaaradka uu leeyahay mucaarad waa dhise waxa ka dhiman muxaafadka waa daldaloolada wax ifiya oo ilaa halkaas marana halka hal waa Yurub laakiin okay annaga xataa marka noo gala baahan mucaarad hadii aan nahay oo taasaan noo gala baahan yahay wuxuu lama yiraahdo ma aha wax Yurub gooni u leedahay ma aha wax America gooni u leedahay Afrika ka mamnuuca ma aha hadii aynaan lahayn maxaa dhex keenay hadii aan wada leenahayna waxa looga baahan yahay waxa waa inuu kaaba waxa ka maqan meesha oo uu waligaa Allah hawadan laga soo xoreeyay dalku firi dalku uu ka yahay bad bari iyo صح gumaysi bay ku jirtay cirkay ku jiray oo ogtahay adaa iga marxaatay oo soo iga marxaatay maxaa dhacay marka waxa dhacay higsi bay u gashay dawladani waana ay ku guuleysatay in ay soo xoreyso maxay yiraahdeen marka waxa la rabaa haddaan qiraal jirin cadaabta la wada galaya eegadan waxba qiran waxa noqonaynaa munaafiq wala ciyaartu galaya waxay yiraahdeen kuwii hore fashion waxay yiraahdeen program soo socda progress waxaan war soo socdeen hor kuwii hore soo way waxa lagu guuleysan way maxaabiis baa laga soo daayay hadii la ku raax xabsiyada waxa la yiri waxay ku guuleysteen inay dadka dhibana ay xabsiyada ku jiray ka soo deysay dawladda waxay yiraahdeen kuwa mucaaradka sheeganaya oo dallayday waxay yiraahdeen sababta oo ah wax soo socday ah war waxa soo socday san ayagu ku guuleysan wala yaabay yaa keenay marka waxay qiraal aan waxaan leenahay qiraalaawe dumiye baabi'iye magaca mucaaradkana meel uga dhacay aqoonyahan aan maanta anigu waxaan bartay waxa la yiraahdo political government laakiin ma sheeganayo waxaan u sheeganayn ba ku sheegay waxay ila noqotay aqoontii qofka Soomaaliga ah waayo aqoonyahanka Soomaalida waxa rabaa inuu dalkiisa dhiso laakiin war aqoonyahan dalkiisa iyo dadkiisa duulaan ku ah lama sheegin karti title hataa waad ka xishoonaysaa marka waxaan leeyahay كلمة كسول علسي معها واسقو أتري معارض وكما معارض وكان تلماما محافظكو وحا وكتري أما كلمن اللغو كابو لكن ما أهن منافقات اسكو درس قبيل كعن كلا دل دليل بانا وحبا كجرن هي دناي سيجارة أو يكون مثلا يكون مثلا نوع مركا هذا قحيتان كي قاموس كويان صفي عبارة وجعلها thank you very much أدفع وجعلها لكن
Soomaaliya xilliga maanta ay marayso niyo hadda markaa eegto 28 sannadood haddaynu film daarno maanta oo aan derbigaas projecta aan kugu daaro kasoo bilaabo 9 ilaa hadda waad shahaadanaysaa waxa la soo maray yani wax laga hadli karo ma aha dad aadama waxay ka hadli karaan ma aha dalkaas anaga ka nimid oo ka dhalan labada sano hadda ugu dambeysana waxaa muuqata in waxyaalo badan ay soo dib u soo noqonayaan muuqato hagaagin mise waa muuqato waan hagaagin waan muuqato waxyaalo badan waa soo qaadan doonaa qodobkaas runtii hadda adiga waxaad qeexitaankan mucaaradka aad siisay ama mucaaradnimadu waa kii yani bulshada reer waa runta Soomaaliya hadda kamaba jiraba mucaarad أنا أسوأ شكتبه واحد الصومالي واحد كجرو وانين دن وتا دلية وباهن أما جاغو أما لاند كروزر أما ريد كاربت كربت عاس حقا العقو دولار وفرا بدن إنه فرطة إنه مال نسقولوا وين نستو أيو ننكاس يعني وجودين كيس يكون جهين ودقال كو قليا أو العقو صود دايمانيا أو كو دل كيسي كبر برنيا وعجائب لمركز داي أريد كده واجس وحاول دللي مركز تري سوماليا أرجعس آدم جعلاده دل معارض سومالي كمجر لكن دللي باكجرت هذا ما صنت نك دللي كا مركز وحن أصلا قرينا مركز حتى دجالك كده حاجة دللي ده يدولد هذا ما صنت دلليداس يدولد دلليدا انت ملايين علامه لو اقون صدو كجواب arrinta جزاك الله بخير aad baad u mahadsantahay aad anigu waxaan su'aashaas aad baan u soo dhaweynay horta waxay sheegtaan marka uu koowaad dalleyda waxa lagu yaqaano dhaqan ahaan horta waxay soo qaataan ereyay jajaba oo English oo institutionka waxaas jada sariga iyo waxa la soo qaataan oo dhaqan aqoonyahanka soo dadka waxay ka dhigaan dad afka soo amaahaday af Soomaaliga waxaan ku hadlaa saddex luqadood oo English Carabi iyo Dutch ilaa ay caawan hal kelmad meediga maqlaysay oo luqad qalaad ah maya waxaan ku hadlaa afkayga oo qani ah waxay rabaan in dadka badow ka dhigaan si ay iyagu marka maxay ila tahay waxay qaadanayso qadan ereyashay oo sida justice-ka iyo waxa la yiraahdo maartay judiciary iyo dilay ku rooyo waxa la yiraahdo institution-ka iyo constitution-ka waxay rabaan dalaga waxay ka dhigtaan ana aqoonyahan ana wax og ma ahan taasi macqaan waa inaad horta afkaaga taqaanaa ka horeysa sax dadkuna af soo amaahan maayaan afkeenu waa lagu filan yahay afka Soomaaliyeed waxaan leeyahay laakiin waxa gelinaya daciifnimada iyo dad kale arkeen inay dad maartay aqoonta ku gaaban tahay yihiin qabyaalad maalin walba lagu kacsan iska daba yaacayeen kee haadan ka daadinaya way yiraahdeen marka saan u kala saarno marka aqoonyahan waxay sheegtaan aqoonyahan siyaasi heritage iyo ururo bulsho way sheegtaan guud ahaan دليدو waa kala saartay classification baa waa kala saaray waad kala saartay ku soo cilmi labaad waxay u kala baxaan waxay sheegtaan aqoonyahan ko siyaasi labo heritage sadawa wari heritage English language heritage dhaqanka waxyaalaha ururiyaha waa ururiyaha wata adilay ku leeyahay iyo ururo bulsho sheegtaan cid allaala cid u dirsatay iyo cid meel ku soo ogaatay ma jirto urur bulsho waa in bulshadu ay horta isku raacaan heritage sax wax aad waa cilmi wax ku waa museumka iyo waxyaabaha ummadda waxay leedahay hodan hidahay dhaqanka weey ummadda ay leedahay yes iska soo boode dalley ah bay gacanta u gashay oo dawladda oo nin allaala ninka Soomaaliya u fakiraa la qabanaya tafiyo iyo lugooyo iyo jalaafo si ummadana ay ugu go'aansato danan yar oo daciif ah eeganay waaya dawladda ay dhaleeyaan wasida caadiga ah dhaqan u leeyihiin sax waxay ku dhaleeyaan hadda aan ka soo qaado in la kala saar raac intuu tahay dib u heshiisiin lama sameeyo oo dawladdu way heshiisiin ma sameeyo dib u heshiisiin ilaahay baan kugu dhaarshay yeeyin shacabka Soomaaliyeed maanta tirsan ma jirto shacabka Soomaaliyeed waa dad aad isu cafin og shacabka Soomaaliyeed waxba kama dhaxeeyaan calada laakiin waxa ka dhaxeeyaan niman danley ah iyo dawladda Soomaaliyeed waxa isku hayaan iyo waxay wadaagaan ayaa rabaa inaan aad taabano dawladda iyo danley dib u heshiisiin waa ku calaacala iyagoo ujeeday wax laga heshiinayo maxay tahay albaabay garaacayaan albaabkan nagala furo dawladana waxa nagala siiyo wasiirana nagala sii dalkan u boobno dadkan u boobno
ودد وجدله أو برتي وحي شري باب منك معك شيء يعني عوري موشين لأنتي وأبارو إن موشين أنت الله كأنه رئيس الوزراء هذا دولة ده بتنا اللي لازم بود بوده سو ما تكلم بعد كده يرادين ما مول قوالات ده يبرون يسدون يرادين هاي ولا كنا ده اللي هذا اللي دواي وده اللي ده ما مول قوالات ده تأنا كوا هذا ما فرنا يجينا هيجي الله waxaa kamid ah oo adiga iyo dadka Soomaaliyeed aad ka yaabin doona kelmad la yiraahdo dawladda Soomaaliyeed isqabadkii khaliijka gadar bay raacday waxaan rabaa markaa inaan qeexno kelmadda la yiraahdo dhexdhexaad af Soomaali markaan soo noqono dhexdhexaad hay goormay naqatay dhinac ubada ma afkeeda sameeyaan kama qalay wali dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed gadar bay raacday waxaan dhicin وبين أبور هي كلمة أفصامالك أو اللي بهدلي هي ولي وضد كل اللي وسيني أنا كوسي وضع ويقول عليان هلا بلاري مركي وانا سو جيدين يعني فيري دولدو واحد دليل ولا مش هيان وما يلان ما دليش هو شيء يعني لكن ورماش وحلقة قبل ما لكن وعيلان وعيش كان واحد رمان وعيلان دي مركها بين أبور يا واحد رمان دولة هلا بلاريو أو معناه هذا أي تاي وزيرنا جلسي وإحنا جلسي سي عندك أقول عنه أوكي هلا حبا يدمن أيه وعيش كان قرافات يا وحنا عفوا كريم قرافات وتقنا وسيد بورناها شينكا يا وعجل مركب وحنا عفوا كريم بدن صح سيدا تي في يقدر كيسا ويل بالكين يا بلاد الصوماليات وقال لي وحال لي يعني وحال لي دن ليدو waxay ka soo gudubtay xuduuda aadamaha wiil lahaa inaad aragtay kala mugad dharka wuxuu walay dhaha laga soo TV ba wareysanaya la yiraahdo goob joog sax ba wareysanaya wuxuu yiri walay waxa marka nimana wata niman dan leeyahay wata wuxuu yiri indhaha lay wuxuu ana baawr wata lay qabtay indhaha laga soo xiro waxaan ahay yiri afhayeenkii hore ee galmudug ayaan ahay indhaha laga soo xiro gariba laga soo qaaday anoo indhaha ka xiran meel mugdiya la keenay meel mugdiya ku dhashay qof indhaha ka xiran meel mugdiya la keenay say ugu jeeday waa laga soo waday meel qodxa badan la keenay saad ku garatay kaba bakshan tahay indhaha waa ka xirantay waa la soo waday wuxuu anoo indhaha ka xirnaa barees waxa la gashaday yiri koronto indhaha ba ka xirantay yaa ku tus inta kadib wuxuu dharka iska fur furi ma yiri واديده يرو مدد بديدنا ولا هذا دير كدب دركي ما نسقفوا كدبنا واحد ربنا يوصل اساد ضد waxa leey mucaarad loo magacaabo waa meel ka dhac weey mucaaradnimada iyo in meel wada dhacnaa dan leeynimadii ba xataa meel looga dhacay ana markaa waxaan isleeyahay taasi ku kala duwan waana waxay ku kala duwan dal dhis iyo dal dumis waada daahir ninka barnaamij martida maanta barnaamij waxa martina waa maanta islaaw daahir socdaal runtii naqdiye aqoonyahan wacyi geliye aad buu arrimahan uga hadlaa Soomaalida hadda ka horna waa soo fadhiistaan malaynaa way arrin waa xasuustaa laba soo fadhiistay aan ka wareysan arrimo kala duwan oo Soomaaliya qoseeya barnaamijkan haddii doonaysan ka soo qayb qaadatan daawadayaal ama halkaan ugu kaalay idinka socotaan ama email kasta u wareeganayo أو suga@hotmail.com لسوق قراءة ظاهرا سوق نقولنا ما أنت وكفر حسنا هاي معارض إنه كهذا سوماليا وح معارض لهذا مجرى وادن لي ما صوتوا واحد قصة ليسي قابل سمعت كمعارض كأدونك سو سميسيه لا والله حسبي ماله أورور ماله وحماله معارض وحين قاري دونا مرك حساب سميسنو وين أنت اسمك رنتي مرك وقت بأن هايو حاجة وحنا مرك دقيقة ضير إن تابنه كورن مرك يعني هداينو كجود من الدليدي معارضنا مالي حاجة عين سكوت دنيانا يفينه هذا ما تاي كورن يعني تد بدن وحي كتل بمان جو معمول قبل يدو إنه يهين معارض كوجوين الصومالية أربعة كورن جزاك الله بخير معارض سوس معارض من بدلنا دليد وين مدي هو دليد ما أنسين معارض ما معارض أنسيننا أيها سبتنا مقرنسها هو أورجانيزيشن ده سوى هو أنت أنا ما ديه هذا تقول ديه أنا قاعد لكن أنا بنمشي كراه مال عن حسبي محافظ وكتير نور لسنة شرعية حسبي لسنة أو شرعي أو معارض أنا أوسن كتير أنا ما شيء كرو ماله ينتظر أنا أقول أنا بعدين ما شيء وتكسر على كل حال أنا وحلا دليل بقرني وحلا معارض كان سؤال بيس تطبق قبل سؤالها
yiraahdo Beenay markaa kici karo. waa kan maamul goboleedka inay mucaaradka ugu weyno dowladda dhexe ay qabaan dadka qaarkood anigu email lagu soo qoray waa diidinaa barnaamij ka sameeyay laakiin arrintaa ka waran adiga thank you aad ma santaa wasi horta ma santaa arrinka isaga aniga waxay ila tahay horta waa federaalka arrinta aad ka hadlaysaa sax anigu waxaan qabaa waasugo federaalku horta anigu waxaan ku dhashay dowlad xor ah han leh macno leh midna ah marka waa ii cunan mila yahay waxa la maamul goboleed qabiilaysan annagu waxaan leenahay in adeero waxaan leenahay dhaqan iyo hiddaan leenahay isma qaadan karaan dhaqankeena iyo hiddaheena iyo federaal haddii uu jiro mid qaar wax isqabanayo oo isqaadan karo federaal iyo dhaqankeena marka la isku kabo ay isqaadan karaan ma diideen laakiin ilaa hadda ma hayno hadda waxaan rabnaa waa sugo waxaan rabnaa maamul goboleed ku dhisan maamul qabiileed xuduuda ka qabaa'il xuduuda kala samaysanaya waxaan sugayaa mustaqbalka in ay dhacdo hadday sidan kusii socoto geel fiisa qaadanayo oo qofka ibni aadamka ahu in inta gobol soomaalidu fiisa u kala qaadato gobollo dabeetana ay dhacdo geela waa roob raacna dad waxaan nahay muxuu ahaa reer guura ah in aysan xuduud ka gudbi karin oo galmudug iyo puntland inay fiisa geeloodu kala qaato iyo hirshabeelle waa saacadii waa naga dhamaatay farsamada waa gacanta bay taagtay gabadii barnaamijka ku siinayaa maxaad kula tali lahayd ummadda Soomaaliyeed kuwa danleyda ah inay dadkooda iyo dalkooda dhinac ka raacaan wax ka dhisan waa maasada waxaan ka horreysiinayaa horta waxaan marka hore baaq u diraya dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo baaq u diraya Soomaali galbeed dadka la yiraahdo oo bariyahan ay aad uga shaqeeyaan waxaan isleeyahay midooba qabiil ahaanta iska daaya ku midooba Soomaalinimo meel kasta Soomaali joogto Soomaaliga joogtahay dawladda Itoobiya waxaad la qaybsanaysaa midnimad ku qaybsan kartaan idinkoo mid ah oo Soomaali ah taas waa qodob laba waxaan rabaa inaan danleyda u soo noqdo waa dalkaagii doqonyahow waa dadkaagii dabaliyahow waa dalkaagii doqonyahow dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada iyo shakhsiyadaada u nax oo ilaahaaga ka baq qani weeye isagaana kugu filana dadka dabay yaacaya ee qabyaalada ku daba ordayana waxa leeyahay maskaxdaadu iyo noqon maqsin lagu leeyahay oo 12 muftax ay wax lagu furto aad u mahadsan yahay daawadayaal barnaamijka waa arag SNTV Landa waxa marti noogu ah maanta isla daahir socdaal ee aad wada garanaysaan yani qoraa wacyi galiye naqdiye yani aqoonyahan intaasoo qaata waana xooga abwaana waaye aniga oga maanta ma sheegan ma aqaan waxa uga leexday barnaamijkii taas ku soo afjaraya farsamada waxa iska leh Maxamed Yara engineer Maxamed Yara tan inta kulmi doona barnaamijkan oo kala ama ka wanaagsanba waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo aad baa maasantay aad maasanta ma sha Allah salaamu alaykum